إخلاص 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 يا مؤمنين إخلاص 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 ikhlaaska iyo mutaabacadu waa dubdhaxaadka camal kasta oo allah looga dhowaado isla markaana loo sameeyo isaga dartii iyadoo laga rajaynayo abaalmarin lagana baqayo ciqaabtiisa. dhanka kale waxaa lama huraan ah in la iska ilaaliyo ikhlaaska waxyaabaha meesha ka saaraya oo ay ka mid yihiin shirkiga, istutuska, sumcadda, isaanbixinta iyo in magac iyo maal aad ku dhex yeelato dadka. إخلاص إخلاص يا مؤمنين إخلاص 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 rabbi wuxuu kitaabkiisa qur-aanka kariimka inooga amray ikhlaaska iyo inaan isaga keligii cibaadada u gaar yeelno iyo inaan ku dadaalno arrinkaasi si aysan camaladeennu u noqon kuwo waxba kama jiraan ah, sidoo kale aanan uga biirin kuwa hoogay ee tacabkooda ba'ay. allah sareeye wuxuu kitaabkiisa sharafta badan ku yidhi: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. sidoo kale wuxuu aayad kale ku yidhi: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ikhlaaska oo lagu lamaano niyad wanaagsan iyo in allah looga run sheego camalka la qabanayo wuxuu qofka bini'aadamka ku gaaraa meel uusan ku gaarin camalkiisa. xadiidu jaabir bin cabdillaahi radiallahu canhu ka wariyey nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa sheegaya in nebiga sala allahu calayhi wasalam saxaabadii ka soo laabatay duulaankii tabuuk ugu warramay inay jiraan rag ku sugan madiina oo haddii ay socdaan iyo haddii ay tog maraanba la jira, lana wadaagayaan ajarka laga helayo camalka ay qabanayaan. saxaabaduna waxay weydiiyeen arrinkaasi rasuulka sala allahu calayhi wasalam, waxayna ku dhaheen siday noola jiraan iyagoo madiina ku sugan. wuxuuna u sheegay inuu rabay xanuun. waxaa xaqiiqo ah in qofka insaanka uu camalkiisa aan allah dartiisa loola jeedin uu halbacaad lagu lisay ka noqonayo, isagoo weliba ku daalaya dadaal fara badanna ku bixinaya. camalka waxaa baabi'iya ikhlaas la'aanta, waayo laba qof ayaa samaynaya hal camal iyagoo weliba ku bixinaya dadaal siman. markaas ayaa midkood camalkiisu waxba kama jiraan noqonaya, maadaama uu markii horeba allah dartiisa ka ahayn oo lagu doonayey dano kale. waxaa arrinkaasi si wanaagsan u caddeeyey xadiidka aadka loo wada yaqaano ee wariyey cumar bin khataab radiallahu canhu, wuxuuna xadiidka ku qoran yahay bukhaari iyo muslim. cumar wuxuu yidhi: waxaan maqlay rasuulka sala allahu calayhi wasalam odhanaya: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. xadiidkan markay culimmadu sharxayaan waxay sheegaan qiso tusaale cad u ah. qisadu waxay ku waramaysaa nin magaalada maka almukarama ka soo hijrooday xilligii ay rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabidu ka soo hijroodeen, balse isaga lahaa dano kale oo waxaa la sheegaa inay hijrootay gabar muslimad ah oo u jeclaa, isla markaana doonayay inuu guursado gabadhaas. ayuu uga soo baxay maka almukarama isagoo u soo hijrooday almadiina. hase ahaatee camalkiisa lama aqbalin, waana lagu celiyey maadaama uu noqon waayey mid allah dartiisa loola jeedo. camal kasta oo khayr ah waxaa lafdhabar u ah laba shay, waana ikhlaaska oo ah camalka allah dartiisa loola yimaado, iyo mutaabacada oo ah inuu waafaqsan yahay hadyigii nebiga sala allahu calayhi wasalam. qofka markuu niyaddiisa baro inay camalka khayrka ah allah dartiisa ula timaado, wuxuu ikhlaaskaasi horseedaa inuu marka dambe ka tago caadaadka aan wanaagsanayn iyo waxyaabaha naftiisu jeceshahay, wuxuuna u kaxeeyaa dhanka cibaadada. adilada qur-aanka iyo axaadiidta ku timid mowduuca ikhlaaska aad ayay u fara badan yihiin. hase ahaatee waxaan jeclaysanay inaan dadka muslimiinta aan ku baraarujino arrinkaasi muhiimka ah. الرحيم إخلاص 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 يا مؤمنين